waxaan soo furnaynaa application-ka Gmail kaasa soo kicinaynaa qaabka u samayn lahayd Gmail. waxaa ku soo bixi doonto meeshan ay ku qoran tahay create account samee. halkaasaan ku dhufanaynaa kadibna meeshaas waxaan gelin doonaa magac. aniga hadda waxaan gelinayaa xaashi. meeshan ay ku qoran tahay majeeda first name meesha ay ku qoran tahay magaca koowaad aan gelinaynaa xaashi hoos u soo deg. meesha kale waxaa qoraynaa cali. 3 magacna waa ka dhigi kartaa 2 waa ka dhigi kartaa. kadib waxaan leenahay next oo wareegana. kadib meesha halkan waxa laga rabaa inaad date iska saxdo iyo bisha. month waxaan ka dhigi doonaa bisha January ka dhiganaa. meeshan waxaan ka dhigi doonaa koowda bisha ka dhiganaa intana 1999 ka dhiganaa. meeshan kalena waxaan ka dooranaynaa male aan ka dooranaynaa. hadda dumar tahay female ka dhigi kartaa adiga. wareegana waa sugaynaa. halkan markii keeno waxaan taaban doonaa magaca ugu koreeyo oo kor ah oo xaashi ali36@gmail.com kaas ku dhufanaynaa. kadib halkan waxaan gelin doonaa password aan gelin doonaa oo ka kooban 8 number. waxaan ka bilaabi doonaa 1 2 3 4 5 6 7 kadib waxaan leenahay next. waxaa laga rabaa inaad 8 number gelisid. xitaa haddaad rabtid xarf waa ku dari kartaa. hadda waxaan isku daray xaashi 2233 ka dhigay. hoos waxaan ka dhigay xaashi 2233. kadib waxaan leenahay next. halkan waxaa laga rabaa inaad gelisid ama hoos soo deg meesha taabo ay ku qoran tahay I agree. waa aqbalay hoos u soconaynaa. kadib meesha waxaan ka taabanaynaa I agree. kadib waxaan leenahay next. waa kaas wuxuu ku keenay caadi wuxuu ku keenay Play Store-ka application-ka kala soo degi kartaa.